bismillaah asxaab qaali ah kusoo dhawaada barnaamijkeennii Hiigso Noloshaada qaybtiisa labaad. barnaamijkan oo saldhigiisu yahay inaan horumarino fikirka iyo wax ka beddelka nolosha iyo garashada ahmiyadda uu leeyahay qofka bini'aadamka ah. waxaan maanta qaybtan kaga hadli doonaa adeegsiga caqliga. Caqliga waxaa loo isticmaalaa wajiyo badan, laakiin kan aan maanta doonayno inaan ka hadalno ayaa ah mid ku saabsan sida aad ula falgeli lahayd aadmiga iyo noloshaadaba adigoo isticmaalaya caqligaada. ugu horreyn, caqligu insaan ahaan waa waxa aad uga duwan tahay noolaha kale haddii uu ahaan lahaa xayawaan sida geela, ariga iyo wixii lamid ah. qof ahaanna waa waxaad uga duwan tahay aadmiga kale. sidaa darteed buu alla subxaanahu watacaala waxa uu qur-aankiisa ku leeyahay قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. kudheh sayidka muxamedka ahow, alle waa midka idin abuuray, waxa uuna idin yeelay maqal, arag iyo qalbiba. waxaa yar inta aad alle u mahadcelinaysaan. qalbiguna waa booska caqliga uu ku yaalo. haddaba marka aad doonaysid inaad adeegsato caqligaada, waxaad adeegsan doontaa qaacidadii caanka ahayd, taas oo ah ha samaynin wax fal ah ka hor adiga oon ka fikirin waxa ka dhalan kara. qaacidadan marmarka qaar waad ku badan tahay adeegsigeeda. tusaale, ka soo qaad adiga oo rabo inaad marto waddo, haddana ay suurtagal tahay inay xiran tahay dhammaadka waddada ama ay furan tahay. sida caqliga ah waa inaad hubsataa inay furan tahay ka hor inta aadan marin. mid kale aan soo qaato, waxaa lagu dhahay waxbaro. durbago maskaxdaada waxaa ku soo dhici doona kadibna waayo waxa ka dambeeya inaad ogaato ayay ku xiran tahay inaad wax barato. laakiin haddana in badan oo nafsadaada muhiim u ah uma adeegsatid qaacidadan. tusaale, hadalka. qofka bini'aadamka ah inta badan hadalka wuu dhahaa asigoon ka fikirin waxa uu yahay ama waxa ka dhalan kara, iyada uu hadalku uu yahay qaybta ugu weyn ee tilmaamaysa qofnimadaada. taasna kama wado hadal kasta oo la dhahayo ha laga fikiro, ee waa midka aadan ogeyn ama aadan cilmi u lahayn waxa uu yahay. sidaa darteed buu alla subxaanahu watacaala waxa uu qur-aankiisa ku leeyahay ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. hadhihin waxaadan cilmi u lahayn maqalka, aragga iyo qalbigaba. ku kasta oo iyaga ka mid ah waxaa mas-uul ka ah insaanka. haddaba isku day inaad adeegsato qaacidadan si aad hoggaan fiican ugu yeesho nafsadaada.